madaxweynaha xisbiga hanti-wadaagga Sonoma Injero ee dalka Japan ayaa isagoo khudbad si toos ah telefishinka uga jeediyay waxaa mid ku soo weeraray in xisbiga mucaaradka ka tirsan kadibna sidaas ayuu ku dhintay isagoo si toos looga daawanay telefishinka. dilkii Sonoma kadib Japan waxaa hareeyay dibadbaxyo rabshado wato kaas oo lagu cambaaraynayo dilkiisa. ninkii dilay Sonoma waa la dilay ugu dambeynna waxaa lagu eedeeyay dilka Sonoma inay reer galbeedka ka dambeeyaan. 22 November sanadkii 1963 madaxweynihii hore ee Mareykanka John Kennedy ayaa lagu dilay magaalada Dallas dhexdeeda ee gobolka Texas isagoo halkaas ka waday ololihiisa doorashada madaxtinimada. 3 rasaasood ee lagu dhiftay ayaa waxaa la sheegay in laga soo tuuray daaqad dusheeda. 2 maalin kadib ninkii dilka ka dambeeyay ayaa la dilay isagoo si toos looga daawanay telefishinada. halkan waa janalka Rafiiq al-Macruuf. 12 May sanadkii 1980 wiil Turki oo lagu magacaabi jiray Maxamed Aakha ayaa waxa uu rasaas ku furay baadiriga weyn ee loo yaqaan Yohana Paul Thani kaas oo safar ku mariyay wadanka Boortaqiiska. Rasaasaas ayaa baabaha waxay ku keentay dhibaato xagga jinsiga oo kala kulmo iyo dhibaato dhanka caloosha. wiilka Turkiga ayaa maxkamadda soo taagay su'aalihii la weydiinay waxa uu ku jawaabay baabaha wax sabab u maanad waxyaabihii ugu cajiibsanaa ee warbaahinta laga baahiyay waxa kamid ah ninkii falka geystay ninkii loo geystay oo si farxad ah isu cafiyay. baabaha ayaa xabsi ku booqday wiilkii falka u geystay kadibna waa uu cafiyay. dhowr sano kadib waxaa geeriyooday baabaha. Maxamed Aakha waxa uu soo qaatay ubax wuxuuna dul dhigay qabriga baabaha isagoo ka qomameynay falka u geystay. markale aan ku soo laabano Mareykanka 13 Maarso sanadkii 1981 madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan oo ka soo baxay mid kamid ah hoteelada kuna wajahan baabuurkiisa ayaa 6 rasaasood waxa ku dhuftay lagu magacaabo John Higley isagoo isticmaal biskooladiisa. halkaas ayuu ku geeriyooday Ronald Reagan. markii la dilayna waxaa la socday George Bush aabihiisa. sidoo kale carabta waxaa ka dhacay iyadana shirqoollo kuwaas oo si toos hawada looga daawanayo. 6 Oktoobar sanadkii 1981 waxaa la dilay madaxweynihii hore ee dalka Masar Anwar Saadaat iyadoo lagu guda jiray xafladda xusitaanka dagaalkii 6 Oktoobar ee 1969 dhacay. dilkiisna waxaa ka dambeeyay koox lagu tiray munadamada Jihad al-Islaami inay ka tirsanaayeen. sidoo dhacdooyinkan aan ka sheekeynayno Filibiino ay ka dhacday 22 Agoosto sanadkii 1983 Benigno Aquino oo ahaa mucaarad ka soo horjeeda nidaamkii Kaligitaliska ee Marco Dictatori. Benigno Aquino ayaa saxaafadda waxa iskugu yeeray shir uu ku qabanay diyaaradda gudaheeda. ugu dambeyn shirkii oo dhexdhex maray ayaa waxa uu imaaday ciidanka. Benigno Aquino waxay uga saareen dibadda halkaas ayaynu ku toogteen dhammaan wariyaasha waxaa lagu xiray diyaaradda gudaheeda. ugu dambeyntii mid kamid ah wariyaasha ayaa waxay u suurta gashay inuu sawirka Benigno Aquino inuu ka qaado isagoo isticmaalaya daaqadda diyaaradda. ugu dambeyntii halkaas ayaynu ku geeriyooday. kadib dilkii Aquino waxaa banaanbaxyo aad u ballaaran u hareeyay dhammaan dhulka Filibiin iyadoo looga soo horjeeday nidaamkii Kaligitaliska. waxayna sababtay geeridii Benigno Aquino in dhammaan dadka ay ka qaadaan isku xidhnaasho nidaamkii Kaligitaliska ahaana laga qaado awoodda. aan ku soo laabano markan mid kamid ah dalalka carabta waxay kaamirada soo qabatay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa madaxweynihii hore ee Jazaa'ir Maxamed Boudiaf oo xubin muhiim ah ka ahaa kacdoonkii Jazaa'ir. waxa uu madaxweyne ka ahaa wadanka Jazaa'ir muddo aad u dheer. geeridiisa ayaa imaaday kadib markii uu booqday magaalada Xanaab halkaas uu ka jeedinayay khudbo aad u cajiib ah oo kula hadlayay shacabka halkaas ku nool. waxaa rasaas ka soo bilaabatay dhinaca dambe ee dhabarkiisa taasoo ugu dambeyntii rasaasta ay ka asiibtay dhinaca dhabarka. Maxamed Boudiaf halkaas ayuu ku geeriyooday. 23 Maarso sanadkii 1994 ololihii doorashada ee ka jiray wadanka Mexico ayaa waxaa lagu dilay mid kamid ah hogaamiyaashii xisbiga kacaanka ee Mexico ee la dhihi jiray Luis Colosio halkaas oo irtiyaalkiisa uu ka dhacay. waxaa loo isticmaalay biskoolad mid kamid ah waxaana lagu eedeeyay Mario Martinez in la dhihi jiray in uu dilay laakiin sawirada kaamirada ay soo qabatay in ninka si toos warbaahinta loo horkeenay ayaa xoogaa muuqaal ahaan kala duwanaayeen. ugu dambeyntii ninkii lagu eedeeyayna waa la dilay iyagoo dhammaan shacabka Mexico ay daawanayaan. ugu dambeyntii isla waxaa ka dhacay 2007 shirqool aad u weyn. 2 bilood kadib shirqool fashilmay oo lagu dilay Rabi Benazir Bhutto iyadoo ka khudbadanaysa isu soo baxay dad badan oo taageerayaasheeda ay ugu soo baxeen fagaaro ku yaala mid kamid ah Pakistan ee 27 December sanadkii 2007. Bhutto waa ay geeriyootay kadib markii loogu xiray gaarigeeda waxyaabaha qarxo. halkaas ayaynu ku nafbaxday iyadoo geerida qaraxaasna ay ku heliyaan 23 shakhsi kale.